agaasimaha macadka tababarada maamulka gobolka Banaadir Mudane Cumar Faaruq iyo dhammaan wariyaasha kala duwan qaybaha warbaahinada ka kala socda gobolka Banaadir wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinada madaxa bannaan macallimiinta kullu waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeyso waxaa farxad gaar ah in aad tababarkan ka soo qayb gashaan waxaan rabaa inaan horta inta ugu horeyso inta aan tababarkan aan u gudagelin aan mahad gaar u celiyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir oo iga aqbashay inay noo furto tababarkan ayadoo howlo badan oo shaqo u yaalaan dulqaad badan ii muujisay marwa basmo aad iyo aadan kaaga mahad celinayaa mar walbana waxaan arkaa inaad u taagan tahay in shacabkaaga u adeegtid si hufnaan iyo qadarin ay ku dheehan tahay waan ku mahad celinaynaa abaal aad ummadda Soomaaliyeed u haysto waan ogahay inaad ma aragtay bahda warbaahinta saaxiib gooni la tahay adiga meel walbana isla joogtaan aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gasho noo furto xafladan sida aad la socotaan aniga inta aan joogay gobolka Banaadir qaybteeda warfaafinta waxaan aad iyo aad isugu taxluujinayay inaan bahda warbaahinta oo aniga aan ka tirsanahay in ay helaan waxbarasho ama ma aragtay seminaaro kor loogu qaaday aqoontooda seminaarkan sidaad u jeedaan waa seminaar la rabo hadda dalkii TV iyo radio waa ka guure adduunkan la jaan qaadnay oo waxaan joognaa waqti hadda ma aragtay social media uu xoog badan yahay ka xoog badan yahayba TV-yadii iyo raadiyaashii marka sidaas daraadeed waxaan aragnay marmarka qaarkood in aan annaga waxyaalo badan aan ka fahansanayn sida loo isticmaalo warbaahinaan nahay hay'ado institution aan matalnaa sidee marka aan waxaas wax ugu qaban karnaa wax markii la soo qoro hadda wuxuu noo sheegayay macallin guuleed in ma aragtay suxufi caan ambassadorkeena uu dhaliil yar gobolka Banaadir oo haddana ma aragtay waxtar leh uu soo jeedinay annagii ma aragtay qaarkeen kuma aan baraarugsanayn macnaha taasoo kale ma in dhacdo waxaa la rabaa meesha aad joogtid shar iyo khayr waxa ku soo kordhisay inaad ogta horta social media maanta waa inay dad gooni ay leeyihiin u qaabilsan institute-kaas ama hay'adaas oo aad ka shaqeyso waxa ay soo kordhisay haddii la amaanay inaad amaantii aad ka falceliso oo ma aragtay dadkii kula socdo ku dhiirigelinayo aad u ma aragtay abaal celiso haddii lagu dhaliilo ileen adeegaanahay adeegayaasha waa la dhaliilayaa dhaliish waxtarka leh inaan qaadano kadibna aan ka falcelino si aan u tusno ummadda inaan u shaqeynayno ma aha markii lagu dhaliilo in ma aragtay adiga lagu dareeyaa mise lagu nacab yahay waxa waaye waa inaad wax ka barataa ileen qof 100% ah ma jirto qof walbo anaga naga mid ah waxa waaye waa in ma aragtay u ogolaada hadduu meel soo istaago banaankiisa soo bixiyo in la amaani karo la nacayn karo haddii lagu caayo maaha nacab qofku ku qabo marka waxaan ma aragtay jeclahay oo aan rabaa inaan idin sheego in qof walbo anaga naga mid ah inaad ma aragtay ku dadaashaan maanta iyo berri waqtiga anagoo dhooreyno ka faa'iideysano waxaan meeshan ka faa'iideysanana meeshii aan ma aragtay u shaqeynayna ama ha noqoto wasaaradihii ha noqoto gobolka Banaadir ha noqoto ma aragtay saxaafadda oo madaxa bannaan intaba in aad kula noqotaan meesha oo aad waxa soo barataan maalin akursa maalinta hadda eray aad siyaasataan eragaas waxbuu idin tarayaa maanta waa imaateen faa'iido darro ma aha haddii aad hal eray meeshan ka faa'iideystaan waxa waaye inta noloshiina ka dhiman tahay waxba idin taraysaa marka waxa waaye way fiican tahay aqoonta maalin walba waxaan u joognaa anaga u taaganahay in aqoon korsano waa soo dhaweynayaa waxaan aan mahad gaar u celinayaa macallimiinta waxaan mahad gaar u celinayaa Amazon oo gacan naga siisa hadana gobolka Banaadir in aan tababarkan u fidino suxufiyiinta kala duwan
waxaan soo dhaweynayaa waxaa ila joogo saaxiibkay ka mid ah wariyaasha Cabdicasiis Barrow ka socda VOA-da aad aan ugu faraxsanahay soo dhawaan ku leeyahay saaxiib oo gartay dhahay asagoo ogna inuu rugcadaa yahay haddana wuxuu gartay in labadan bari uu ma aragtay ka mid noqdo ardayda wax ka faa'iideysto waa soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu